marka dadka laftigoodu mindsetka in la bedelo waa muhiim. waxyar baan rabay oo cilmi baaritaan sameeyey oo aan obstacleska laga hadlayay. haddaad 2 minutes igu dartid waa samayn karaa haddii my boss Soomaali qof maamulo la maqli waayay bay ka hagaag weydee inaan dhageysto waa rabaa exportka rinay waxaanu ka qaadnay Somaliland Soomaaliya goboladoo dhan research muddo 6 bilood socotay obstacleska ku waxaas waa barwaaqada ay oo kalluunkii oo beeyadii oo xoolihii oo wax kasta laakiin dhibaatada haysata waxa weeye haddaad istiraahadid xoolaha Soomaalida kala dhoofiyo Sacuudiga baabaynu ka dhamaan weyno xoolaheedina soo celinaya asagoo awalba duuduub ku qaadanayay oo meeshii ridu marka all the value added laga fikiray ay noqon lahayd maybe $500 ay ku qaadanayaan 60 ama 70 haddana la oranayaa xoolihii gobolka waxba galay gafana cunay balaayo waa la soo celinaya marka dhibaatada ugu weyn oo haysata waxa weeye horta agriculture Soomaaliya oo dhan 60% weeye livestock waa 31% beeyada oo aan la ogeyn wax gurta xitaa inay Puntland ka timaado adduunka essential oil waxaan ku arkay Mareykanka la leeyahay waxa laga keenay Soomaaliya laakiin yaa regulate gareeya la dhameysay gabadhii maanta waxay sheegaysay aad baan ula dhacay kalluunka waa 25% anyway waxaan waa ka hadlay kana waa researchkii aniga human capital markaan ka hadlo raasamaalka ugu weyn ee wadan leeyahay markaan uu dhinay waa maxay caqabadaha hortaagan gaar ahaan gabdhaha waxa jira 86% wixii surveyga laga sameeyay rag baa ugu badnaa 86% waxay yiraahdeen bias waxa jira dumarka iyo dhalinyarada xuur baa la leeyahay kana waa wax yar waa nin 35 jir gaadhay dumarkiina waxa leeyahay ma iska joogto maxay la qaaqleeday ma gurigeeda joogto laakiin banaanka habana joognaa jaadkaanu iibinaynaa samadhadanu iibinaynaa reerkii marka miska lagu talamayo in la fadhiisiyo marka waxaan sii weydiinay maxaa sababta keenay economic resources 82% culture bias 80 waliba culture bias kaasi ayay marka unfortunately iyo waxbarasho la'aan shaqo la'aan 60% 4.5 clan allocation waa 60% baa yiri dib bay nagu haysaa iyo government policy marka de waxaan malaynayaa ma joojiyaa investmentigii ugu badnaa aan islahaa ragii halka soo fadhiisan lahaa haddii bas way okay no problem waxaan waa findingkii obstacleska quality control inaanu jirin roads inaanay jirin political instability cashuuraha markaad galmudug tagtid ama aad dhaaftid Hirshabeelle Puntland different tax processes cheap energy la'aantiis transport railways waterways lack of product standardization waa problem access to roads cross border trade Soomaalida iyada isugu filan inay baacimishtar noqonayaan laakiin ma gali kartid meel lama tagi kartid trade policy ma jirto all that stuff waa mahadsantihiin Dr. Hodan waa mahadsan tahay muhiima bay in la qaybsatay waa ka xumay waqtigoo yar iyo laba